اسم الله عدل بانا ما هدله عفماتنا وسمة يردها عركا فرن وعدين على اسم الله عدل بانا ما هدله عفماتنا وسمة waxaa maanta rabnaa inaan idin la wadaagno barnaamijka ciida guud ahaan waxaa maanta caadiyan lagu ciiday wadamada islaamka anagana waxaan joognaa wadanka Germany haddaba maanta waxaynu eegi doonaa guud ahaan wadanka Germany Soomaalida degan qaabka ay u ciideen khaasatan magaalada Bremen qaabka loogu ciiday waxaan halkaan idin kala soo socodsiin doonaa qaabka Soomaalida degan magaalada Bremen ay maanta u ciiday waxa barnaamijka ciida igala qayb qaadan doona saaxiibkay Suldaan Media Bro oo barnaamijka la dahdiin doona waxaan si guud iyo si gaar ahaaneed u wareysan doonaa dhammaan shucuubta Soomaaliyeed ee degan magaalada Bremen dhalinyarada iyo odayaasha halkan maanta waxa joogta dhalinyaro badan odayaal badan oo aan doonayno inaan barnaamijkan ciid aan la wadaagno waxaan idin la socodsiin doonaa qaabka magaalada Bremen loogu ciiday iyo Soomaalida degan qaabka ay u ciideen. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan isku soo dhawaada Suldaan Media Bro sida la socotaanba maanta waa ciid waa maalin farxadeed waxa garabkayga fadhiya ay aad baa horta dareenkaygu farxad badan yahay maadaama dhammaan intii muslimiinta ee gaar ahaan muslimiinta ku nool Soomaalida oo dhammaan isku soo baxay maanta salaad ka bacdi dadkii wada faraxsan lama soo koobi karo dareenkayga farxadeed maanta ciidan iyo ciidihii kale maxaa u dhaxeeya isleedahay dhanka ciidihii hore iyo ciidan waxa u dhaxeeya wallahi waxa oran karaa un wacdeeda ciidii hore qabow bay ku soo aagi jirtay dadku saab badan isku soo bixi jirin laakiin tan waxaad moodaa inay aad cadceedu qurux badan tahay oo aad dadkina isku soo baxeen iyagoo ka faa'iideysanaya markaa waqtiga ciida iyo jawiga quruxda badan ee cadceedu ku dheehan tahay yaas halkan si gaar ah u la wadaagaysa farxadda ciid adigoo halka ka faa'iideysanaya dhammaan horta waxaan aad in halkan uga salaamayaa oo farxadda kala wadaagaya ehelkayga iyo carruurtaydaba iyo deyntii muuqayga garanaysaba aad baan ugu wadaagayaa farxadda ciida maanta asxaabta waxaa la idin ka codsanayaa barnaamijka inaad share gareysaan maanta waxaan joognaa magaalada Bremen waxaan wada joognaa dhalinyaro iyo odayaal nagu qaali ah ee magaalada Bremen wada deganahay sida la socotaanba maanta waa maalin ciid darteeda ayaan maanta waxaan halkaan isku aragnay Abuukar oo kamid ah odayaasha ama waxgaradka magaalada Bremen oo aan deganahay waxaan rabaa inaan maanta ciid aan laba kelmadood ama saddex kelmadood wax ka wareysto Abuukar ku soo dhaw Suldaan Media Bro waan dhawahay ma sha Allah ciid mubaarak ilaahay ciideeda nagu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo ilaahay amalka soo qabnaa naga aqbalo dhamaantiin Abuukar ciidan maanta halkaan aan ku wada qaadanayno waxyaabaha ciidan iyo ciidihii hore ay ka duwan tahay waa maxay ciidan iyo ciidihii hore waxay ka duwan tahay bari hore magaaladan Bremen aan deganay Soomaali yar baa ayaa joogi jirtay si fiican hadda sanadkii ugu dambeeyay Soomaalidu baa soo guurtay marka ciidihii hore waxay ka duwan tahay inaan ku ciidnay Soomaali ciida ka badan aan ka wada ciidnay hay ciidihii hore ka duwan tahay oo bari hore wax dhici jirtay in Soomaali degan wax yar kooban ahaan jirtay oo in yaro maartay يا إسكرانيسا هيد لكن ما أنت دي سنديه هوري سنديه هوري سلا شكتي كويرد مجال الصومالي يوسند كان عيد درينكا ودرينكا عاد بدوية هاي وحكي دوية هاي واحد مدامك ما تا ساكت كنت كنني دينا الصومالي شو قاموا دي واحد الصومالي مش كنت كنني سف يعني إنك ما دام حيراتي كوفنتي كنا ولا قاضي marka dadku soo baxeen marka maxamed joogo iska fiicnaa halka waxa la jooga xaaji de kulay anagu in badan ban meel ka soo wada kacnay waxaan malaynayaa xaaji de barigooro isagu ma taqaana fanaan buu haajiray laakiin hadda yaraaw ka fadhiistay shaashadaha ka baxay laakiin hadda nagu de reer Bremen nahay noo soo celi baan ku leenay waa lagu tabay way waa dhanta xaaji nin bada meel buu ku fiican yahay marka xaaji oo maanta ciida nagala qayb qaadanay munaasabada ciida intaas kaftan hayno haato xaaji ku soo dhaw munaasabada ciida Suldaan si gaar ah ku salaamay waxa weeye Suldaan waxa weeye bashar barakaysan weeye dhamaantii aad baan idin salaamayaa qalbiga qulubtii aragga caafimaadka waxa weeye iyo cimri dheer cibaado suuban baan ilaahay idinka baryayaa ciid wanaagsan oo la isku arkay maanta noo dhacday ilaahay maada ka gaadho magaalada Bremen dalka Germany
si qurux badan bay noogu dhacday taasna ilaahay bay mahad u sugnaatay suldaan maasha allah xaaji kulley dee aniga adigu beriman lanooga sheekayn maayo in badan baynu kasoo dhex kaarnay ciido badan baynu joognay laakiin waxaad moodaa ciidan muddo badan inagoo xabsiyo ku jirnay in ciidani ay wax badan iska bedeleen bal adiga oo si gaara u taabanaya 2 iyo 3 shay oo aad ciidan si gaara oran karto niyo wallaahi ciidii hore waxaas kaga duwantay bal ku soo koob suldaan waxaa moodaa ciidan in ciidii kale hore ka qurux badan tahay kana qaabaysan tahay sida dadku iskugu soo baxeen sida la iskugu yimid dhalinyarada rag iyo dumarba waxa weeye ciyaalkii xasaskii iyo aan laga soo tagin dhammaantoodba loo wada socdo waxaa moodaa si qurux badan inuu dhacday waqti karooniya laga soo baxay dadkuna free iska yihiin waxa weeye blamaska lagu socdo meel kasta la mari karo xorriyadna lagu socon karo waxa weeye xorriyadda qayb ka mid ah hadda dareemeynaa maasha allah xaaji gabagabadii barnaamijka yaad halkan si gaara adoo ka faa'iideysanay munaasabadda ciidda ka salaamaysa awalan waxaan salaamayaa hooyaday familigeyga waxaan leeyahay dhammaan intii dhimatay oo muslimna allah u naxariisto inta dhimanna allah ugu daba naxariisto la kala hari maayo waa la kala horeeyaa suldaanow 100% suldaanow adigana saaxiib si gaaraan kuu salaamaya bilaa calayk maanta waxaan wada joognaa saaxiibo qaali ah waxaan ku wada ciidaynaa wadankan Germany khaasatan magaalada Tom Bremen sida caadiyana waxaan ku wada ciidaynaa xagga dambe hot baanofka magaalada Bremen waxa ila jooga oo aan raba inaan ciida kelmad iyo laba aan ka yiraahdo saaxiibkay Suldaan Media Bro ku soo dhaw Suldaan Media Bro Suldaan runtii aad baad mahadsan tahay waxaan ku leenahay kulay ciid wanaagsan kulay muddo yaro mataqaana 3 sano ama 2 sano ciid laan baa lagu dhacday si fiican waxaan ka dhax wareysanayaa Suldaan Media Bro page-kaaga ka waran maanta magaalada Bremen sida looga ciiday kulay aniga maanta farxad bay tahay sababtu waxa weeye wali ma arkin 200 oo dhalinyaro ah baan ofka dheerashiisa ama meel isugu timid oo caruurtoodii iyagii hablahoodii iyo dumarkoodiiba wata runtii aniga farxad bay tahay way muddo 3 sanadood guriyaan ku xidhnay waxyaabaha ciidan sida qaaska ku taabtay maadaama ciidihii hore ciidan isku mid ahayn maxaa kamid ahaa waxa kamid ah ciidan waxa weeyaan hal mar baa la isku soo wada baxay si fiican hal mar baa masaajidada lagu wada tukaday hal mar baa dadkiiba intii banaanka suumay cadceedna u soo baxday ayaa waxa lagu jiraa ilaahayow ciida ku xigta sidan oo kale si qurux badan nooga dhig waan kaaga mahadcelinayaa magaalada Bremen sida aad kaamirada u dhex maraysid Soomaalida ciideeda aad baa u mahadsantahay